xeebta Lido waxay ka mid tahay goobaha bulshada Muqdisho ku nool ay u damaashaad tagi jireen maalmaha Jimcaha iyo Khamiista sidoo kale maalmaha fasaxyada dadku waxay u tagi jireen in waqtiyo kala duwan ay ku qaataan halkan tan iyo markii cudurka coronavirus uu soo gaaray gudaha dalkeena waxa wasaaradda caafimaadka talooyinka iyo awaamirta ay soo saartay ku jiray in la joojiyo goobaha bulshada ay isugu timaado waxaana ka mid ahaa xeebta Lido isbedel weyn ayaa laga dareemayaa xeebta Lido ee magaalada Muqdisho haatan waxaana aad u yar dadka yimaada waa Jimcaha Khamiista waa imaajiray siday maanta u taal iyo siday markii hore u aali jirtay isbale sax waxaana keenay say ila tahay cudurkan dilaaga oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda adduunyada dhan ka taagay marka maanta waaba cid laba annagaaba cabsi weynaba laba inaan isla socono marka kaba tagno xaafadayna ka aadnay ay galabta joogtaan bismillah fa hubeena oo dhaxaysa maalintii oo macna jimciisa saacada amal marka la imaado meel istaaga ma jirto ma fahantaay meel aan bulsho ma fahantaay ana waa kaas xaga filmaanka sameey jirnaa ani asmaan ma fahantaay wallahi saaxo waa isbedel jawin waa isbedel ma fahantaay wax walba waqtiga sheegaya dadka waa cabsadeen oo gurigooda joogaan nin walba waa cabsada gurigooda joogaan ma fahantaay waxaa shaqo la'aan dareemaya dhalinyaro badan oo halkan doomaha isaga xiray waxaa ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa doomaha dadka u damaashaad geeya xeebta iyo agaarkeeda qaarkood aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inuu aad u yaraaday lacagihii ay ka shaqayn jireen halkan maalmaha Jimcaha iyo Khamiista farq weyn u dhaxeeyo ebil xalal ka soo qaadano tusaale ahaan Jimcadii haday maano waxa qaban jirnay 200 ilaa 300 $. hadirtaan Ramadan ka hadii la gaari cudurkii saameyntii u yeeltay waxaan qabanaa adii $10 ka hoos qabanaa waxa uu aan cudurka saameynta u yeeshtay cudurka saameynta u yeeshtay dadkii yaraadeen xeebtana dad joogana male waa cidlo doomankiina waa kuwaas xag iska baakimiyihiin saas waa halkan waa xeebta Lido magaalada Muqdisho maalinta Jimcaha oo maanta kala halkan waxa isugu imaan jiray kumanaan shacab ah oo ka yimid xaafadaha magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah deegaanada ku dhow siyaabo kala duwan ayaa halkan u imaan jireen labada maalin waxaana qaarkood halkan u soo doonan jireen in uu soo nasiina doontaan halka qaar kalena ay u soo dabaaltagi jireen laakiin markuu bilowdo cudurka coronavirus cabsida laga qabo isla markaana uu soo gaaray dalka waxa aad u yaraaday in dadka halkan imaan jiray ay yimaadaan maalmaha Jimcaha iyo Khamiista ayadoo laga cabsi qabo cudur coronavirus inuu fido waxa sidoo kale dadku ay u muuqdaan kuwa u hoggaansamaya talooyinka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka ee looga hortagayo cudurka coronavirus indhahaygu waxay qabanayeen doomo kala duwan oo xeebta yaala dhalinyaro badan oo ka shaqeysa waxa saameeyay amarada lagu hakinayo ismaatanada bulshada waxa ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa doomaha kalluumaysiga oo xeebta ka soo jalaabta kalluunka waxa aad u yaraaday wax soo saarkooda kalluunka sidii hadba sida u soo saar jirnay waan u soo saarnaa laakiin maciishadii gadashadeedii iyo dadkii isu imaashadoodii iyo wixii cariiri noqdeen xafada kalluunka hadii uu yiraahdo markii hore waxaan gada jirnay $2 ba $3 ilaa $4 $5 hadda waa dhulka bay imaataa marba iska daadinaa marna waa nagala iibsadaa hadda si waa boqolkiiba waa kuwan doomanka way iska wada dhigeenba sidaad u jeedaan hadda way wada safan yihiin waxaana keenayo cuduradan iyo wadooyinkan kala xirxiran iyo dadkii isu imaashada oo suuqa cariirigii dadka wax ku iibsan jireen aynan imaanaynin inkastoo saameyn dhaqaale uu ku yeeshay cudurka coronavirus dalkeena iyo dunida inteeda kale haddana waxaa jira khasaare badan oo u geystay dalkeena waxaa sii kordhaya dadka uu soo ridanayo maalinba maalinta ka dambaysa Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho